dib kastoo ku haysta adduunyadan aynu maanta ku noolnahay waxaad ogaataa inta ku haysata laba jibbaarkeed ayaa dadka qaarkood la halgamayaan. farqiga idin dhexeeyaase wuxuu yahay iyagu marna ma rajo go'aan, mar walba waxay la nool yihiin maanta oo waxay ku bixinayaan 100% in ay dadaalkooda ugu dambeeya gaaraan. waxay ku bixinayaan ilbiriqsi kasta inay naftooda dulqaad iyo samir ay ka buuxshaan oy naftooda ku qanciyaan in dhibkani uusan dhaxal ahayn uu dhammaan doono. haddii taleefon qaalihi maanta uu soo baxo oo uu $1,000 joogo, waxaa laga yaabaa naftaada inaad ugu sheekaysid haddaadan awoodi karin oodan iibsan karin inaad ku tiraahdid iska sug ilaa sanadka dambe inta laga gaarayo, kolley qiimihiisu uu soo dhacaya. taleefonna fara badan oo kale ayaa soo baxaya. waxa aad wax ku cabiraysaa taleefonkaasu inuu qiimihiisu isdhimi doono waa hal shay. taariikhda noloshan aad soo noolayd iyo intaad wax soo iibsanaysay ayaa waxay ku tusaysaa in shaygani marka suuqa la keeno oo uu muddo yaallo kadib inuu qiimihiisu isdhimayo. haddii baabuur qaalihii soo baxo, haddii saacad qaalihii soo baxdo, haddii dhar qaalihii ay soo baxaan, kaba qaalihi hadday soo baxaan, taariikhda noloshaada ee aad taqaanid ee naftaadu ay baratay baa waxay tahay qiimahani wuu isdhimi doonaa ee mar uun iska sug. haddaba warkaan ku farxadda gelinaynin doonay inaan kula wadaago waa marna lagama filayo qiimaha guushu ay joogtaa in qiimo dhimis ay marna ku timaado. sannad kasta oo la joogaba qiimaheedu meesheedu taagan yahay. oon ka wado haddaad filaysid in wax walba iyaga oo fudud oo sahlan ay ku yimaadaan, taariikhda nolosha adigu aad garanaysid ma tusaysataa. laba uun waa mid, ama waxaad bixinaysaa qiimaheeda oo dhammaystiran ama waad iskaga dhaqaaqaysaa oo waad ka quusanaysaa. waxaad ogaataa waddada guushu ma ahan waddo sahlan oo si fudud loo maro, ma aha waddo raaxa leh, ma aha waddo loogu talagalay qof kastaaba inuu maro. waa waddo godod badan, waa waddo qodxanya ay daadsan yihiin, waa waddo ay masaamiiri taallo, waa waddo qalab aad u fara badani uu daadsan yahay, waa waddo ciriiri badan oo buuralay ah, waa waddo geeduhu ay ku baxeen. haddaba waxaan doonayaa inaan ku idhaahdo waddada dhismaa ku socdee dulqaadkeeda ma leedahay? haddaadanse maanta bilaabin goorma ayaa kuu qorshaysan?